waa jenaraal ciidan oo saameyn weyn ku dhexleh ciidanku ku abtirsado. magaciisu waxa uu si aada bannaanka ugu soo baxay dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay oo uu socday dagaalka gobolka Sool. Faysal Cabdi Bootaan waxa uu sanadkii 1960kii ku dhashay gobolka Togdheer, halkaasi uu ku barbaaray. sanadkii 1980kii oo dugsiga sare ka dhameeyay Muqdisho, waxa uu ka mid noqday ardaydii loo qaatay barnaamijkii shaqo qaran ay hindistay dowladda kacaanku. intaasi kadib waxa uu ka mid ahaa dadkii saluugay nidaamkii Maxamed Siyaad Barre, waxaana uu sanadkii 1982kii ku biiray jabhaddii SSDF ee uu madaxda ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. intaasi kadibna waxa uu ku biiray jabhaddii SNM isagoo ka mid noqday guutadii afraad ee uu hogaaminayay Maxamed Cali. markii SNM ay qabsatay Somaliland sanadkii 1991kii, waxa uu ka mid ahaa dadkii lagu aasaasay ciidanka militariga Somaliland, waxaanu kadib muddo dheer soo ahaa taliyaha ciidanka Koonfurta Casta ee magaalada Burco. waqtigii xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo oo la bilaabay in darajooyin lagu taxaa ciidamada, waxaa Faysal la siiyey darajada kabtan. hadda waa jenaraal, waxaana uu taliye u yahay qaybta 12aad ee ciidanka militariga Somaliland. waa taliye magaciisu hadalhayn badan ka abuuray bulshada dhexdeeda waqtigan oo guluf dagaal uu ka socdo gobolka Sool. dhowrkii maalmood la soo dhaafay, jenaraal Faysal laguma arag warbaahinta, taas oo iyaduna sare u sii qaaday hadalhayntiisa, maadaama uu yahay sarkaal hadalkiisu meel dheer gaadho marka ka warbixinayo dagaalka. dadka qaar waxa ku beermay shaki ah inuu ku dhaawacmay dagaalka, taasina ay tahay sababta uu soo hadli waayey. balse maanta ayuu ka soo hadlay saldhigga Gooja Cadde, isagoo sidii caadada u ahayd ka warbixiyay dagaaladii u dambeeyey ee ciidanka Somaliland la galeen ciidamada kale la dagaalamaya. waxaana warkiisu daqiiqado kooban ku gaadhay meelo badan, iyadoo ay daawashada hadalkiisu noqotay mid saameyn badan. dadka yaqaana Faysal Cabdi Bootaan waxay ku sifeeyeen nin ku wanaagsan hogaaminta ciidanka, hoodana u leh guusha dagaalka.